tan iyo markii wiil yar oo muddo la xanuunsanaa afka oo isku dhagay lagu daweeyay isbitaalkeena waxaa isa soo tarayay bukaanada qaba xaaladaas oo kale ee ka warhelaya in isbitaalka lagula tacaalo xanuunadaas waa kan wiil dhalinyaro ah oo muddo 15 sano la xanuunsanaa afka oo isku dhaganaa lagu daweeyay isbitaalka كل معانا كتاب إلى ما قصنا وساين يا شيء تمسنا والله هرتا الحمد لله دكاتير هore waa tagay shil gaari aan igu dhacay wuxuu igu dhacay dhowr iyo 10 sano ka hor isbitaalo kale oo badanna waa tagay wax laga ma qaban kara dhaheen dibadda oo dareen qaarkood anagana ma ogeyn inuu digfeer joogo Dr. Ismaaciil marka anaga oo ku wareersan sida dibadda ku aadi lahayn iyo diyaar garowgii dibadda aan helnay dhakhtarka ma sha Allah وانا لوجو ليستي أرنتي وعركتان قبل صار مئهن وحمعون الجرين لباتي إهد انتظر لكن ما أنت الحمد لله وحان ربع عني كرا وحان ربعان سمي كرا ساندونا وهدلي كرا إلهي كسكو وحا سوبتاس إي مهداس علينا يا دكتور إسماعيل وعلمي جيسا إي وقت جيسا خالي يعني إيقو عاويي maalin wax u cuno walaahi waa iska dhibanaay daciif aan cuni jiray maanta qaado iyo waxaas wax ma cuni jirin tartiib aan cuni jiray cuntada biyaha sidoo kale hadalka tartiib u hadli jiray laakiin alxamdulillah maanta waxaan rabaa cuni karaa saan rabaan u hadli karaa walaahi haddeer xaaladeyda farxadeeda maanta lama soo koobi karo waayo dhowr iyo 10 sano waxaan haminayay riyada kaliya aan haminayay maanta inuu dhakhtarka ii rumeeyay maalin anoo si fiican wax cunay inaan arko sababtaasna dhakhtarka iska leh aad u faraxsanahay isbitaalkana isbitaal aad u fiican waayo si fiican ay daaweeyay si fiican ay la socday dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka waa daryeelkiisana aadan ooga helay dhakhtarka sanka cunaha iyo dhagaha Dr. Ismaaciil Maxamed Cali ayaa ka waramaya sida ay ula tacaaleen xaaladda wiilkan dhalinyarada ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Dr. Ismaaciil Maxamed Cali dhakhtar ku takhasusay daaweynta iyo qaliimada cunaha dhagaha iyo sanka bukaankeena maalmaha kamid ah wuxuu nagu soo booqday bukaan socodkeena asagoo ka cabanayo afkii isku dhagan muddo 15 sano ah wax uusan calalin weligiis waxaan biyo ahayn aanan qaadanin cabitaan iyo wax dareero ah oo aad ugu dhibanay afka inuusan kala qaadin taasoo ay ku dhibaneed xitaa haddii gudaha dhuunta dhib uu ka jiro ama infection qaado aan la fiiri karin oo xanuunka dhuunta hadduu ka qaado xataa afkiisa aanan u kala qaadi karin ayuu noogu yimid bukaan socodka alxamdulillah baaritaan ka bacdi aan u dirnay iskaan oo u dirnay oo lagu baarayo waxa haayo ninkan waxaan ogaanay iskaankaas markaan saarnay ka bacdi in labada dhinac laftan garka meesha madaxa ay ka gasho labadoodaba isku reysteen waxa la yiraahdo bilateral temporomandibular joint ankylosis waxa la yiraahdo ayaa ka helnay cudurkaas after markaan cudurkii ka helnay isku reysta labadaas lafood meesha lafta garka gasho madaxa waxaan balan gareynay qaliinkaas oo bukaanka aan u sharaxnay ka bacdina uu naga aqbalay bukaanka oo aad ugu walwalsanay in maxaa la yiraahdaa la yiri dalka wax lagama qaban karo dibad maahane muddo 15 sanana dhaqaatiir badan raadinay ilaahay wuxuu noo waafajiyay inuu anaga nala kulmo ka bacdina aan u balan gareyno qaliin muddo laga joogo 4 maalin ka hor waxaan u sameynay qaliin la yiraahdo gap arthroblast with interposition temporalis myofascial flap iyo contralateral coronoidectomy qaliinkaas oo ah labadii meel inaan furno haddana aad arkaysaan in bukaanka afkiisii uu aad u faraxsan yahay afkii kala qaadayo joontigiisii maxaa la yiraahdaa wax calali kariyo
maxaa la dhahaa wax cuni karo, hadli karo. anaga ahaan waxay nooga dhigan tahay qaliimada noocaan ah wadanka qariibka ku ah bukaanada Soomaaliyeedna ay u dhiban yihiin in aan garaadkeena iyo cilmigeena ugu shaqeyno intii Ilaahay naga fahansiiyay. aad ayaan ugu faraxsanahay in bukaanada Soomaaliyeed aan u shaqeyno. insha Allah waxaan rajeynaynaa qaliimadan qaliimo ka sii casrisanna inaan u sameeyno insha Allah ay dadka la dhiban yihiin.